السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamijkeenii ku dayo. maanta barnaamijkeena waxaynu ku falanqeyn doonaa amba dhowr eray iska oran doonaa saxaabiga qaaliga ah Abubakar as-Siddiq. Abubakar as-Siddiq magaciisu waxa uu ahaa Cabdillaahi bin Abi Quhaafa. waxa uu ka dhashay Quraysh. waxa uu dhalasho ahaan ka dambeeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam 3 sano. hooyadii waxa la oran jiray Ummul Khayr Salma bintu Sakhr at-Tamimi. waxa uu ka shaqaysan jiray ganacsiga, waxaanu ka mid ahaa hantiilayaasha reer Maka. waxa uu islaamka qaatay isagoo aan wax diidma ah kala hor iman. waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee rumeeya rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka laga eegayo xagga ragga. inta kadib waxa uu bilaabay inuu dadka ugu baaqo diinta islaamka, waxaana ka aqbalay bar ka mid ah raggii reer Quraysheed oo kala ahaa Uthman bin Affan, Zayd ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf iyo Arqam bin Arqam. waxa uu hantidiisii ugu badnayd ku bixiyay adoomadii islaamay ee ay haysteen gaaladii reer Quraysheed si uu uga badbaadiyo ciqaabka ay ku hayaan. waxaana ka mid ahaa adoomada Bilaal bin Rawaax iyo 6 adoon oo kale. waxa uu ahaa Allaha ka raali noqday dadka ka ugu dhow qalbiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam.